416 arday oo kamid ah dufcadii lixaad ayaa maanta ka qalin jabiyay kuliyadaha kala duwan ee bixiso jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabad loo qabtay ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo xubno ka tirsan golaha wasiirada safiirka Itoobiya u fadhiya Somaliland iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda Armas Ihsaan Umar Ismaaciil ayaa ka warbixiyay tirada ardaydan ka qalin jabisay kuliyadaha kala duwan ee bixiso jaamacaddu jaamacadda Armas oo ka kooban 416 kuwaas oo ka kala qalinjabinaya xarunta ama departmentyada soo socda waa information and communication technology, accounting and finance, management, economics, development studies, iyo office automation and technology systems. jaamacaddu waxay jirtay muddo 8 sano ah 8 sano ee jirtay waxay ku tallaabsatay horumar iyo guulo badan oo la taaban karo oo magaceeda maamuus u soo jeediyay Jamhuuriyadda Somaliland. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Zamzam Cabdi Aadan ayaa kelmado dhiirigelin u ah ardaydani ka jeedisay munaasabadaasi. waxyaabaha qaar waxa ka wanaagsan inaydaan niyad jabin ee aad noo timo horta aniga xafiiskaygu idin furan yahay inaad guruubba wax ku shaqadu ma aha inuu qof shaqo tago laakiin si haddaad guruub ahaan wax u qabsan kartaan oo idinka raadina meelaha dhaqaale laga heli karo ama wax laydikala qaban karo ama meelihii idikaabi kara inaad intaad cagaa isku taagisaan qof walba shaqo heli waayo isma diidayso qofku inuu shaqana helo uu meelna leeyahay ay guruub wada leeyihiin 2-3 baa ka shaqo tegi kara inbaa meesha ku hadhi karto ka shaqayn karta madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa hambalyo u diray ardaydan ka qalin jabisay jaamacadda Armas. ardayda maanta ka qalin jabisay Armas University macallimiinta iyo staff-ka shaqeeyaba waxay soo jeedinayaan hambalyo aad iyo aad u ballaaran baan soo jeedinayaa waxaan leeyahay noqda kuwii dalka iyo dadkuba anfaca dalkooda iyo dadkooda anfaca waxaan aad u faraxsanahay waan ku faanaynaa maanta heerka aad gaadheen tacliinta ka gaadheen aqoonta ka gaadheen waxaan ku rajo weynahay inaad noqonaysaan oo aad tihiin dadkii mustaqbalka dalkan iyo dadkan u tali lahaa wax badan ka qaban lahaa dhinacyo badan oo laga eego marka waxaan leenahay soo dhawaada madaxweyne Silaanyo ayaa halkaasi koob ku gudoonsiiyay Maxamed Maxamuud Cabdi oo ah ardaygii ugu sareeyay jaamacadda sanadkan Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.